ما قبتها ما يعبسي ما قب ما عبسي ما قب ولا لا جوينك والله dawladdu siday u maareynayso hadda wax walwala kuuma hayso sama degmo miya tuulo miya koonfur galbeed su'aalan ku weydiiyey ma tuula ma degma maamul u soo magacaabay way ogol yihiin oo kuwii waday way ogol yihiin والله ولي عاد وقراعين hawlal ma kugu hayso adiga yaa taadib ma kugu hayso awal weyn bay ugu haysaa aniga ma aha in la iga qaaday ilay kursiga calankii baa meesha laga qaaday koonfur galbeed way fiirinayaan waa garataan u malay ya daanyartii mucaaradka ahi calankiyaa la qaaday koonfur galbeed calanka ma anagaa lahay soo inay ka hadlaan maahay kow mar haddii calanka meesha laga qaaday waxaa waaye maamul ma ahidiin waayo koonfur galbeed ma ahidiin waayo erayga adeegsatay ma kula quman yahay waa ila qumay inay diidaan bay ahayd war calankana u yaalo nabadgelyadana ay xajiyaan maamulkana ay doortaan amniga baydhabo iyo koonfur galbeed saad ii sheegtay wax badan baad ka soo shaqaysay Ethiopia waxyaabihii 2020 kale isku qabtay kamid ahayd hadda bixitaankiina Ethiopia ka shaqaysaa leey waa idin difaaci weeyday waa idin sheegtay waxba aan ku sugunay isku tashada idinkuna 20 daqiiqo magaaladii aad 7 sano maamulaysan waa hayn weydeen saas miya waxaan kuu sheegay Ethiopia anaga horta nama dhalin ma ogta Soomaalida ula mid ahay laakiin what the fucking legend or this guy was legend والله what the fuck magaaladii aad 7 sano maamulaysan waa hayn weydeen بس تقاعد قاعد يرسي waxaan kuu sheegay Ethiopia anaga horta nama dhalin ma ogta Soomaalida ula mid ahay laakiin meeshay deganayd oo amniga iyo waxa ama soomtibay taas waa baabkeeda mid kale inay noo dagaalgalayso oo Ethiopia noo dagaalgalayso waliga ma ku fasax ay waa garataan malay ay mid kale wax uu nugula gatay baa jira waxay ka wada maxalad ku ka wada haydeen koonfur galbeed waa la gatay wax baan nugula gatay wixii ayaga ahaan baad goobkooda ku jirnaa waa soo ogaan markaan soo ogaanaan sheegayna idinkana ma la gata khasbiyan maxaa malis weydiina wax baan nugula gataa ma ku eri heshiis siyaasadeed iyo dhil siyaasadeed iyo lacag ma gasheen oo sanad kala qaateen anaga ma jirto waqti bay gata xasan taas lama dhil garayn anaga hadda ma howlgab ahaanaysa mise deegaanka ku laabanaysa hadaan hadda howlgab noqonana waxba dhibaato ma laha dadkii meeshii degan yihiin qabiilkii meeshii uu degan yahay wuu joogaa wuuna nool yahay dawladdii ha dhiseeno ninkay rabaan ha geeyeeno ha maamuleeno ha ka tageeno inay tagaan baa sugaysaan hadda guryahoodii iyo dalka ciidanka meeshuu ka shaqaynayuu tegi doonaa ma fahamti wax barbalema ma annaga ciddii la keenaba oo meeshaa la keeno oo wanaag ku maamusha doodba uma qabno wadamay fariintaada ugu dambaysa ee aad u diraysid dadka koonfur galbeed waa maxay dadka koonfur muxuu yahay hadalku muxuu yiri oo meeshaa la keeno oo wanaag ku maamusha doodba uma qabno wadamay fariintaada ugu dambaysa ee aad u diraysid dadka koonfur galbeed dalka koonfur galbeed mise dadka doodba uma qabno wadamay fariintaada ugu dambaysa ee aad u diraysid dadka koonfur galbeed dadka koonfur galbeed ha waa maxay dadka koonfur galbeed fariintooda way qabaan aniga igama sugayaan igamana rabaan cid annaga naga mid ana kama rabaan fariintii wixii ay ka shaqaynayeen fariinteeda way haystaan haddayba gacanta ku hayaan iyagoo degmo ah xitaa gobol ma ah iyagoo degmo ah iyagoo habeen iyo maalinba la baaranayo la dhacayo la dilaayo weliba dil baa jira dad qarsoodi ah jira oo weli la la'ay dhibaatadaas iyo nabadii ay qabeen aan qofna qof la hadlaynin ninkii nin dila horey laga dilaayo wax qabiil la yidhaaho oo loo eexanayo aysan jirin taasay haysteen hay-adihii ka shaqaynayaan oo wax walba nabad ah ay haysteen maantana maxay haystaan waxay haystaan iyagoo calankoodii la tirtiray maxay haytay aan nabadgelya jirin habeenkii guryaha la baaranayo mobile aan la qaadan karin haddii la rabo dil loogu u dheer yahay
waxaasay gacanta ku hayaan barwaaqadii maanta ay shalay qabeen maanta ma qabaan hal xafiis soo shaqaynaya ma jiro kalsooni lagu shaqeeyana ma dadka wadada maartaas waa kuwa degmada intay degeen isku xabadaynay annaga ale lagu dooday ya marka way haystaan fariin kale ma rabaan geelarow way haystaan fariintooda aad iyo aad baad u mahadsan tahay jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan oo ahaa taliyihii hore ee ciidanka asluubta Soomaaliya iyo khabiir dhinaca ciidamada ah oo in ka badan 50 sano ka soo shaqeynay si dhowna ula socday khilaafaadkii siyaasadeed ee u dhaxeeyay dawladda federaaliga ee Soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed ilaa ay soo gaartay ugu dambeyntii in dawladdu ay xoog hubeysan kula wareegto magaalada Baydhabo